salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha daafaha dunida ku sugan meel kastoo ad iga daawanaysaan duhur wanaagsan hadday idiin tahay hadday galab idiin tahay waan soo dhaweynayaa axbaabi fillaah maanta waxaan inoo wadaa ilmaha timahooda sida loo dabo siday ugu bixi karaan sida ugu fudud oo ilmaha timuhu ugu bixi karaan ama ay ugu dheeraan karaan haddii aad u sameyso every week or markastaba Saturday to Saturday hadaad u sameyso inshallah sabti to sabti hadaad u sameyso masha Allah ilmahaaga result fiican baad ka helaysaa timaha siyaabaha ugu fudud ay ku baxaan waxyaabaha ugu fudud timaha ciyaalka ugu baxaan hadday ilmahaaga timahaaga ay bixi waayeen dabista weeye haddii aad taqaano masha Allah way fiican tahay haddii aanad aqoonina channelkan waan soo gelin doonaa marar badan insha Allah timaha sida loo dabo iyo designada loo sameeyo insha Allah biidmillah haddii aad taqaano masha Allah haddaanad aqoonin videoga dhameyso insha Allah waxaa jira dad badan oo ilmaha saloonka geeya oo lacag ku bixiya waxaan dhihi lahaa waad baran kartaan you guys try insha Allah ila socda halkan iga daawada saan u sameynayo insha Allah haddii aad taqaanay waa perfect waxaa kaloo idin sheegayaa dhammaan walaalaha dunida ku nool waxaan rabaa inaan u duceeyo dadka xanuunsan dadka dhakhtarada ku jira dadka jiifa dadkii dhintay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta caafimaad qabta Ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo dhammaan ummadda muslimka ah waxaan leeyahay Ilaahay caafiyo intii xanuunsan inta ducada waxaan rabaa inaan dadka u duceeyo ducada waa la isku leeyahay dadku xaq bay isku wada leeyihiin dadku waa wada walaalo inta ka bacdi waxaan idinka codsanayaa inaad channelkayga subscribe saartaan haddii uu channelkan helpful yahay uu wax idinka caawinayo dhammaan waxaan ka codsanayaa walaalaha qofkii arka inuu aan u dhaafin uu subscribe-ka ii saaro like-ta ii saaro share-ta ii saaro anigana ballan waxaan ku qaadayaa wax wal oo idin cajabiyo ama wax wal oo aad u baahantiin in la soo geliyo inaan soo geliyo biidmi raxmaan salaamu calaykum waraxmatullah